soo dhawaada saaxiibayaal waxaan ka hadli doonaa ciyaarihii xalay dhacay dabcan Spain si xaragal ay ku soo baxday Talyaaniga waa uu soo baxay inkastoo ciyaar caqabad ay ka dhacday dabcan Croatia iyo Talyaaniga ciyaar aad u caqabad badan oo Croatia xaqiiqatan inay soo baxaan ay u qalbinayay ciyaareen dabcan Talyaaniga daqiiqadii ugu dambeysay Benoni lamaba baasinba ayuu goolkii barajada u dhaliyay ciyaaryahan Sacconi balse ciyaartu waxaa xiiso u yeelay gool uu dhaliyay Modric kadib markuu rigooro uu cunay rigooradii ayaa laga qabtay dabcan oo ammaanteeda waxaa lahaa goolayaha Talyaaniga oo inta badan u muuqdo goolayaha ugu fiican Euro hadda waxa ciyaaraya wuxuuna noqday ciyaaryahankii ugu da'da soo 25 jir safto in ka badan 10 kulan oo ciyaaro Fartezi oo gadaal ka yimid ayaa dabcan Talyaaniga rigooro ku keenay oo dabcan rigooradiina waa laga qabtay balse second kadibna waa laga dhaliyay isla goolkii gool ayaa loo bedelay rigooradii sidoo kale waxa amaan lahaa Sacconi oo bedel ku soo galay ciyaartan waxa bedelay Chiesa iyo Sacconi dabcan Dimacao ayaa Shamaka waxa la bedelay ninka la yiraahdo Dimacao oo dabcan xalay garabka ka ciyaaray inkastoo muuqan Talyaaniga ayaa dhaliilo badan loo soo jeedinaya Saka maadaama ciyaar aad loo qanci karo oo soo bandhigin Talyaanigu dabcan lama oga wuxuu ku aadi doona balse la arki doonaa waxa ka soo baxo caawana dabcan Ingiriiska oo hore loo sii sheegay inuu soo baxay xitaa hadii laga badiyo caawa ayaa ciyaari doono sidoo kale groupkaasi Denmark ayaa la filayaa caawa inay soo bixi karto hadii ay badiso weeyo oo ay Serbia si fiican uga badiso dabcan ciyaaro xamaasad ay leeyihiin sidoo kale groupkii Netherland iyo France ay ku wada jireen oo Poland iyo heliseen waa la filayaa asagana caawa dabcan inuu ciyaaro marka dabcan ciyaaruhu waa si adkaanayaan inkastoo Euro sidii la filayay u muuqanba